السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت مداوديان ميل كasta ka joogtaan dunida. Halkan waa telefishinka caalamiga BC24. Maanta waxaan ku suganahay iskuulka ka oo kamid iskuulada ku yaala magaalada Hargeysa. Iskuulkaasi oo heerkiisa waxbarasho uu aad u sareeyo. Barnaamijkuna waa barnaamijkeena hanka ardayga oo toddobaadkan hal mar idin soo gudbino. Barnaamijkan maanta waxaan ku eegi doonaa dugsiga ka iyo qaybaha uu ka kooban yahay. Dugsigan ka oo kamid ah dugsiyada guud ahaan ka hana qaaday Soomaaliland. bal ku tiriska ardayda uu warsan doono waxa uu doonayo inuu mustaqbalka noqdo magacaaga fahmi badak salaamsa hooyadii yaabay aabaha maxaad markaad weynaato maxaad doonaysaa inaad noqoto macallin noqoto ma sha Allah ma kugu hambalyeynaa dadaal baan ku leenahay galaaskaaga noo sheeg aad ma si ardaygan wuxuu yiri waxaan doonayaa noqdo macallin mustaqbalka insha Allah aad baan ugu hambalyeynayaa insha Allah guul baan ku rajaynayaa hay bye aabahay hooyadii macalimiintada markaad mustaqbalka weynaato maxaad doonaysaa noqoto dhakhtarad dhakhtarada noqotid yaa macalimiintada ma salaamin salaamaya aad baad maasan tahay waxaan kugu rajaynayaa insha Allah inaan dhakhtar ma doonaysid salaam ayidii aabahay hooyada ma salaamin salaamaya macalimiintada ma salaamin salaamaya hay maxaad maxaad doonaysaa mustaqbalka markaad weynaato maxaa ku qorsheynaa noqotid waxay qorsheeyaan inaan noqdo dhakhtar hambalyan ku leenahay insha Allah waad noqon doontaa galaaskaaga class 3A waatay dugsiga wax ka barato ka waran soo dugsi fiican ma soo si fiican wax leeyahay baro aad baan isku hambalay insha Allah adiga dugsiga magaca najma mawlid umar najma iyo badan salaamsa hooyadii aabahay macallimiinteeda waxaan leeyahay waa marsantiin hooyada iyo macallimiinteeda iyo waxa inta ku garasaba garanayso waxaan leeyahay waad mahadsantihiin walaal galaaskaaga class 3A waatay markaad weynaatid maxaa ku qorsheyn noqotid inaan injineer noqdaan doonayaa injineer Allah hayay hambalyan ku leenahay injineerada aad baa hamiya u sareeya dugsigaaga sida wax lagu baraa si fiican sama kugu hambalyan adiga dugsiga ma sha Allah hayo sina uu barnaamijkeena hanka ardayga oo maanta ku suganahay dugsiga ka oo kamid dugsiyada guud ahaan ka hana qaaday magaalada Hargeysa sidoo kale Soomaaliland haddaba inku waxaan la taganahay loo ardayga ugu horeeya waa magacaaga Hadiya Abdulcasiis Mahdiya Abdulcasiis Mahdiya galaaskaaga 2B waatay maxaad tiri 2B hay maxaad marka aad weynaato maxaad doonaysaa inaad noqotid macallin yes hambalyo bal maanta nashirin iyo wax ma haysaa suugaantu waa hibo hidaweeye dhaxalkala hanti baynu leenahay iyo waa hugeeni marna waa hugeeni iyo hoy dugsoon badan dacdi hooyo weeyaan hogashahankaygiyo waa idinka guushe aan haybinayliyo lac ku hiraayo hakareerka quudinay docdi hooyo weeyaan hogashahankaygiyo waa idinka guushe ahaybinayliyo lac ku hiraayo hakareerka quudinayd waa sahan hubaashi aan lagu hungoobine weligaa hamaaline haybadii afkeenu kaydkiinoo hadhaye awgeen halkuu dhigay hogashuba ku curate haka guurin weliga walaal jirtaankallah yad batanka salaamsa maanta macallimiintayda iyo maamulahayga macallimiintada iyo maamulaha ardayda hooyo iyo aabbo ku soo tabcay maxaad iyagan leedahay maasantii haye aad baan kugu hambalyeynaa Farid Wasiya hadiya galaaska tay 2B waatay yad batanka salaamsa hooyadii aabahay iyo macallimiintayda iyo maamulkayga yad batanka salaamsa markaad weynaatid maxaad doonaysaa inaad noqotid waxaan jeclahay inaan noqdo maamule
maamule maamule hay maanta nashiid ma nahaysa ya ha hay afkaan kaadi iftiime ka u qaadadi kaadi iftiime ka u qaadadiinta kaalmeeya islaamka kariimku ha kaa dhigo ka wacan oo wanaagsan ka wacan oo wanaagsan ilaahay ha kaa dhigo maamulihii wacnaaye waqtiga lagu xasuuste wanaag loogu sacabtumay ilaahay ha kaa dhigo ilaahay ha kaa dhigo macalinkii wacnaaye waqtiga lagu xasuusto wanaag loogu sacabtumay ilaahay ha kaa dhigo ilaahay ha kaa dhigo ardaydii wacnayde waqtiga lagu xasuusto wanaag loogu sacabtumay ilaahay ha kaa dhigo ilaahay ha kaa dhigo suldaan batak salaamsa walaaladay aabbee iyo hooyaday haye macaalimta ma salaamin salaamaya haye markaad weynaato maxaad doonaysaa noqotid dhakhtar badoonsaa ya haye hambalyo yad kale maanta batanka salaamsa macaalimiinteeda maamulaheeda sharafta leh hooyo yaaba ma salaamin aabbee iyo walaaladay haye aad baan kugu hambalyaynaa annaga iyo baha badda casba anaga aadan madaxna ku kulan insha allah markii weynaatada noqoto ya haye nashiid ma haysaa haye waxaan taganay arday kamid ah ardayda dugsiga waa magacaaga waa Axmed Cabdilaahi Ismaaciil Axmed Cabdilaahi Ismaaciil Axmed ma galaaskaaga waa 3A waa tahay ha iyo waxaan ka salaamayaa macallimiinteeda walaalada iyo hooyada yaabahay ha way maxaad marka aad weynaato maxaa ku qorsheyn noqotid insha Allah macallin amba dhakhtar waliba waxaan ku han weynahay dhakhtar ha ilaahay waan kugu hambalyaynaa dhakhtar noqotid walaal magaca Salmaan batak salaamsa hooyadii aabbay macallimiinta dhan galaaskaaga 2A waa tahay marka aad weynaatid maxaa ku qorsheyn noqotid inaan macallin noqotid ayaa hambalyo waxaan doonayaa iyad maanta kale batak salaamsa hooyaaba ma salaamay haye nashiiman ma haysaa ibada yakhar dugsoodo badan oo ibada la sidiisi batak salaamsa hooyaday aabbay macallimiinteeda oo dhan macallimiinteedaba marka galaaskee tahay 2A marka aad weynaato maxaa ku qorsheyn noqotid macallin noqdo haye hambalyo adiga iyo inanka nashiid akhriyaysaan haye soo dhawaada akhriya dugsiyada badan oo haybad alla siiyey anagiyo tacliinta iyo cilmi lagu halmaama amba lagu hirooda ayuunbaa la helayo hargeysu ku yaala gaar ahaan jigjige hababkiisa bilida la ragga u soo maray xindiga ahaanta aqriyo hoygii tacliintii iyo xalka laga asaasiyo sacbay ka yeesheen hababkiisu waa ka hantiyo hubqaabu gulayahay dalkiisa lama oran kahe adankugu haweenaya dugsigeeso weligiis halkaasu ahaanaya ha jiro ha jooge waxa laga halmaama amba lagu hirooda cilmiga aad akhriya aniga subaxi salaada kaca naftaan saxaya sujuuda bara sideen ardayay salaada u saxna ilaa camalkiisa u suubinaya salaada ninkiisa galiya siduu yeelisaa qoraa sugaysa allah sadirka sare mudane su'aasha xagiisa seeginaye macalasanaya wax ka saxaye sadkiisa qalbiga u sii daaye sadkii waalidkee sidee u sugna ilmama samihiisa u sii badana
ardayda saqadka subciska jarayo sifaha jaliga xumka soo jooge ardayda saqadka filinka sugayo sifaha jaliga xumka soo jooge aad aad magacaaga cabdilaahi cabdilaahi gaaska tahay sigis marka aad weynaato maxaad doonaysaa inaad noqoto ya marka weynaato maxaad doonaysaa inaad noqoto engineering hay aad iyo aad baan kugu hambaliynayaa muxuu haye maanta barta ka salaamaysaa bartaa maanta iskuulka bartaa maanta maraysa ku soo gaarsiin waxaan salaamayaa aad baad horta u mahadsantihiin sida aad noo soo buuqateen sigaa awgeed waxaana salaamayaa maamulaha waalidkayga iyo cuqaashaba oo salaamaya macallimiinta ba hooyadii abay laftooda iyagu maan salaamin nashida ma haysaa ya waa magacaa markhayr baa la walaa markhayr xuseen warfaa waa la markhayr iyo batanka salaamaysa maanta waxaan ka salaamayaa dhammaan macallimiintayda iskuulkayga ardaydayda oo lafteen hooyaday iyo aabbahay walaalahay dhammaan aad baan u salaamayaa yad kale bartan aad uga salaamaysa iyagana maamulkayga iyo gaar ahaan macallimiintayda adiga iyo inankan aad walaalaha tihiin aad baan idin salaamaya aad baan kaaga qaaday waa galaaskaaga aydbad haa eed baanay marka aad weynaato maxaa kuu qorshaysan inaad noqotid insha allah waxaan doonayaa aduu horta imika waxba ima qorshaysna laakiin waan ka fikiri doonaa insha allah waxaad ka fikiraysa bal imka noo sii sheega noola sii wadaag horta walala fiicnay firkada qofka inaad ogaatay fiicantay laakiin haddana okay dad jecesha waan ku sheegayaa waxaan doonayaa inaan noqdo qoraa aad iyo aad baan kugu hambaliyay inan qoraaya oo iskuulka ka wax ka soo baratay aad baan kugu hambaliyay waa masantahay waa magacaaga magacaygu waa mushtaaq barkad cabdisheebe mushtaaq barkad cabdisheebe waa iyo badka salaamsa waxaan ka salaamayaa hooyada iyo aabbahay iyo dhammaan faamiligayga oo dhan macallimiinta yimaad salaamay maamulkii dugsiga iyo sidoo kale macallimiintayda iyo maamulaheesha waan salaamayaa way marka aad weynatid maxaa kuu qorshay mushtaaq inaad noqotid futurekayga public health caafimaadka aad iyo aad baan kugu hambalinayaa haye waa magacaaga الخير عبد أحمد khayr aad iyo aad baan ku salaamayaa waan kaa qaaday badka maanta ka salaamsa waxaan ka salaamaya waalidkayga hooyadii aabbahay faamiligayga macallimiintii dugsiga sharaf salaama iyagu maanta lafta salaamay iyaguna salaamaya maamulaha iyo macallimiinta famsterka ayaga gaar ahaan abonga qadiyana umar maxaa ku qorshay imka markaad mustaqbalka imka galaaskaaga sidee maxaa imka kuu qorshay imka 7 dhamaysid 5 sanadood baa ku hadhay 5 sano kadib bal maxaa kuu qorshay inaad noqotid mustaqbalkaaga iyo future-kaaga inaan dhakhtaran noqon doono public health haye waa magacaaga xafsa sulub cabdilaahi magacaagu cili xafsa sulub cabdilaahi cabdi xabsi batanka salaamsa waxaan ka salaamayaa hooyadii iyo aabbahay iyo walaalahay macallimiintayda iyo hooyadii iyo aabbahay iyo walaalahay baan ka salaamayaa anaguna uga qaadnay yad kaba bartan aad uga xusatay ka salaamsa iyagana waxaan ka salaamayaa ardayda iskuulka dhigata galaaskaaga waxaan ka salaamayaa galaaskaygana aad baan u salaamay waxaan leeyahay ambalyo galaas imsaatay class 4A waatay way marka wanaagsan maxaa mustaqbalkeena maxaad u soo noqotay دكتورة أيوة بخوة مريم ومقعة محمد يوسف محمد ها هاي بس سلام سا maamulka iyo macallimiinta iyo garaafa masterkiga maxaad doonaysaa marka inaad mustaqbalkeena noqoto injineer ha macallimiinta laftooda ma salaamiyaa waan salaamaya bal maanta maxaad noo haysaa quraan ma noo haysaa maxaad manashiyad noo haysaa maxaad noo haysaa quraan inoo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين معه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حنبلي والله جزاك الله أيوه لا والله على قولي عد موسى
guuleed galaaskaaga 7 7B adiga baan kugu marinaya iyo batanka salaamsa maanta waxaan ka salaamayaa waalidkayga iyo macallimiintayda iyo maamulahayga aad sharafta u leh iyo ardayda la dhigto iyo dadka muslimiinta oo dhan aad iyo aad u salaamaya aad iyo aad baan kula soo macallimiinta iskuulka iyo muxuu ahaa maadaama anna ka mid ahay ardayda iskuulka wax ka barta future-kaaga mataqaana future mataqaana mustaqbal soma maxaad doonaysaa noqotid mustaqbalka waxaan doonayaa inaan noqdo engineer aad iyo aad baan kugu marinaya adiga galaaskaaga masha Allah aan ku salaamayaa waxaan salaamayaa TV-ga oo dhan يا waxaan ka salaamay waliina macalinkii iyo formasterkayga aad kaan u jecel waliina assalaamu calaykum waa magaca Sakriya Mawlid Maxamuud Sakriya basak salaamsa waxaan ka salaamayaa macallimiintayda maamulahayga wanaagsan iyo asxaabtayda iyo waalidiintayda iyo cid walba taqaano muuqayga aragta waxaan kula salaamana macallimiinta iyo muxuu ahaa aad ku sharafta badan iyo maamulahaba maxaad doonaysaa mustaqbalka noqotid waxaan doonayaa inaan shirkad yeeshaan xafiis yeeshaan fadhiisto ganacsade ganacsade ma kugu amrayna maadaama aad u yartahay ganacsade biyaas hay waxa ku haray 5 sano kaliya 5 sano insha Allah dadaal waan dadaalayaa walaal Maida Barre may badan salaamsa aabbahay hooyaday maamulaheena iyo macallimadayda Yaasmiin macallimiinta dhammaan salaamaya salaamsa ay dhammaan salaamsa galaaskaaga galaaskayga KG1 baatay hay markaad weynaasan garanaysaa maxaad doonaysaa noqotid 4 mayde markaad weynaatid maxaad doonaysaa noqotid dhakhtar hambaliyay ay farid baatay marwada heer maxamed adiga Sara Tarmajama adigana ya hay nashida akhrisan حواشيا إلا أغرى تتنوى جارة تتحسست إلا وحمد رتي الله يوم إنوتا مدينة إنوتا مع المين ترى البرد قطو برياي الله والرحمن أطلع ورحيم تبين وي شوية مرة أبكارا تقرأ إبارة حمد ربي بريق يا صلى خير تلورا تبريغيا اترا تبريغيا طاقلتي الماما الله أكبر طاقلتي الماما الله أكبر نبينا مرئيس محمد صلى الله عليه وسلم يا ري آمين أبي عبد الله أوري عبد الله بشروط تشي مطا بشروط تشي مدينة مرضى أدقاق تالي مسبيلت من المعارف إلى مصاي نرب السخرت نردر وناسا آمين همبلي magacayga waxa la raahdaa Shaafici Ibrahim Maxamed waxaan ka socdaa fasalka 5A gaar ahaan namada halkan waxaan ka salaamayaa maamulka dugsiga iyo waalidkayga iyo macallimiintaba si fiican iyad kale bartamaanka salaamsa ardayda iyo macallimiinta iyo dhammaan waalidka
wal maxaa ku qorshaysan marka wanaagsan noqotid maxaa ku qorshay marka wanaagsan noqotid waxaa ii qorshaysan inaan noqdo engineer haa waxa lagu gabay wana ku hayaa bal gabay ma haysaa bal mid akhri بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن نحكي شكينا يا تهريبك وحنو ليها سيدتان تهريبكم يوا هذي ميدان نحريس لهين تهريبكم يوا هذي ميدان دمغشب لهين تهريبكم يوا هذي هلاك نقود دعايو تهريبكم يوا هذي نارتي تهنا وسقيرة intii laash loo afuufay intii lagu yiri badweynta mar uun baa laga gudbaayay sidii xoolaha la foofsho ayay ku halaagmayaan hadii uu bixi dalkeena sidii lacag si dhigteen sidii hanti si qubaan sidii ay maal gashiyo hantida dadka leeyihiin ayay ku dhawaaqayaan miyaad lacag soo dirtaan miidaan ila hadleen miidaan damir lahayn miidaan diig lahayn wuxuu baa soo hilaaca mid yar labadii badbaada nacaswa ki tahriiba nacaswa ki baroorta nacaswa ki dadkiisa yiraahdo miyaad nacdeen miyaad ga goosateen miidaan ila hadleen waxa tahay kii naftiisa u dhiibay dugaaga keenta hadaa tahay kii xumaaday hadaa tahay kii la waayay hadaa tahay kii naftiisa u dhiibay dugaaga keenta maxaad ubadkee dhalaanka shabaabka dhulkeena joogta u tustaa humaaga beenta maxaad u tiraa dhalaanka dhasilaantii aan ogaa miyay kula sii fogaatay gabayga intaas inoogu eegahay aad baan kugu hambaliyay walaal maadaama gabay ka hadlaya soo bandhigtay tahriibka aad waxaad in dhalinyaro Soomaaliland dugsigaaga iyo macallimiintaada iyo sidii wax ku baranto si fiican ma waa si fiican macallimiinteedana aad iyo aad baan u salaamayaa si fiican wax ay fahansiiyaan ma santa hay Malkhayr Abdullahi Abdullahi Malkhayr badak salaamsa macallimiinteeda iyo waalidkayga Malkhayr waxaad ka mid tahay ardayda wax ka bartay dugsigan ka ku yaal magaalada Hargeysa galaaskaaga 5A aad baan kugu hambalinayaa future mustaqbalkaaga maxaad doonaysaa noqotid waxaan doonayaa inaan noqdo macallimad aad baan kugu hambalinayaa wal didaal insha Allah inta dadaali karto waxna baro insha Allah hambalin wal magaca wada aadan xasan hoodo waxaad ka mid tahay ardayda dugsiga wax ka barta marka galaaskaaga iyo cid wada salaamaysid horta adiga aan ku salaamayaa macallimiinta aan salaamayaa ila maamulaan salaamayaa qaadnay waa galaaskaaga class 5A mustaqbalka future-ka maxaad doonaysaa noqotid ma dhakhtar ma abwaan ma qoraa ma ganacsato maxaad doonaysaa waxaan doonayaa nurse inaan noqdo dhakhtarada aad baan kugu hambalinayaa public health insha Allah waxna baro aad noo dadaal insha Allah hayo hadda ila taagan agtay taagan mid kamid ah macallimiinta dugsiga wax ka dhiga su'aashan weydiin doonana waxay tahay marka magaciisa noo sheegi doonaa insha Allah dugsigan iyo intuu dhigayay wixii carqaladii kala kulmay iyo wixii fiicnada kala kulmay marka macna ku soo dhaw barnaamijka TV-ga Badcas 24 TV iyo barnaamijkan ka ardayga أولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم aad baan soo dhaweynayaa maxamed adiga iyo TV-ga Badcas 24 oo ku dhawahay barnaamijka macallin waxaad ka mid tahay macallimiinta dugsiga wax ka dhiga waxaad warbixin guud iga siisaa bal dugsiga iyo sidoo shaqeeyo alxamdulilah horta dugsigu waa runtii waa dugsi ku cusub caasimadan Hargeysa runtii muddadu jiray iyo waxyaalaha guulaha la taaban karo ee uu ku talaabsaday runtii aad bay u balaaran tahay dugsigu wuxuu wax ka dhisaa ardayga uu ka dhisaa sidoo arday ugu noqon lahaa runtii arday fagaaraha ama masraxiyada ku wanaagsan oo qaybta daabuurka aad bay uga qayb qaataan ardaydu inay noqdaan arday macnaha maskaxiyan u dhisan oo aqoontana qaadanaya sidoo kale ardayda waxa weeyaan imtixaanaadkooga waxa weeyaan siday manaahijtu u socdaan runtii waa wax lagu kalsoonaan karo oo waxa weeyaan la isku haleyn karo ayuu dugsigu runtii bixiyaa ما سنتي معلن أدي أبغى نكون مرينا بعلمين تاي كانت أتكلم وبتكلم سكرية كانت وجتان بقى runtii aad baad u maasantay maxamed barnaamijkaagan waxa weeyaan sidoo noqon karaa ardaygu rankiisu u fiicnaan karaa runtii waa arrin wanaagsan oo bulshada dhammaan aynu ku baraarugsanayn hadday tahay dhanka dawladda ajante uga yaala ardayda in wax la baro oo keliya taalow ama waxaan jeedaa
in ardayga maskaxiyan laga dhiso runtii waa arrin aad u muhiima oo aanan meelaha qaarkood ku baraarugsanayn muhiimadda ay leedahay keliya taala ardayga wuxuun la barayo oo waxaan sameeyo waxaan qabo uun la leeyahay base laakiin siduu noqon lahaa ardaygu arday maskaxiyan dhisan ama waxa weeyaan ku dhiiranaan karaa inuu barnaamij diyaariyo inuu waxa weeyaan waxa weeyaan activity-giisa uu fiicnaado runtii aad bay u muhiim tahay mar kastaba hankooga in ardayda kor loo qaado oo macalinka xiisada ugu jira waalidka waxa weeyaan dadka kale bulshaduba runtii waxyaalo fara badan bay ka caawinaysaa ardayga aad baana kuugu mahad celinaya sida fiican ee waxa weeyaan aad barnaamijka u daadihinayso jazaaka allahu khayran daawadayaal qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka aynu soo gaarnay barnaamijka waxaan ku eegnay dugsiga ka oo kamid dugsiyada guud ahaan ka hana qaaday Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka ee Soomaaliland barnaamijku waxa uu aad ugu mahad celinayaa aadan axmed aadan madani oo barnaamijka saaka u soo kala sidoo barnaamijka u duubi lahaa aad baan madani u salaamaya waxa sidoo kale barnaamijka uu aad ugu mahad celin doonaa maamulka dugsiga ka hadii ahaato maamulaha dugsigaasi axmed maxamuud axmed Silaanyo barnaamijku waxa sidoo kale aan la'aantii suurtagal injineer aadan madani oo mar labaad aan mahad celin doono oo maxamed cabdi axmed maxamed xulba barnaamijka la socodsiinayay barnaamijkan hanka ardayga inta isku mudano barnaamij kan lamida waxaad ku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh